بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين به عشر كنا وحنا كمدي هاي عشر ردينا كورس كنا كويك بوكس أونلاين كاسوا إنه كوبران تونا وحياة بدن أو كل جديسن كويك بوكس أونلاين وبرنامج حسابات كوسهلة حسابات كلا دوين إن أديكوا قبض هذا شقة شوجا يا أديكوا كم رقم بعضي في عنو شقيسته كورس كنا كويك بوكس أونلاين أنت وصعده وحاد ستة سوق بران تونتا عشر ردا أي كميت كيهين قيبة بانكسكا قيبة سبلايرسكا هي قيبة كاستمرسكا هي قار كلا فربضن haddaba ciddii u diyaara ama daneynaysa kooraskeenna quick books online waxa ay la soo xidhiidhisaa lambarada shaashada kaaga muuqda bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu idil ahaantiima magacaygu waa khaalid cabdi gaxnuug maanta waxa aynu halkan ku bilaabi doonaa ama aynu ku falanqayn doonaa kooraskeenni quick books online kaasi oo si heer caalamiya u diyaarsan isla markaasna xisaab international accounting system ah welibana ka hormarsan quick books desktop kaasi oo goob kaliya ku koobnaa balse kani uu meel walba available ka yahay dunida meel kasta joogtaba hataa adigoo businesskaaga aan dhex joogin marka chapterkeena koowaad ayaan ku bilaabnaa chapterkeena koowaad waxa la yaqaanaa creating a company qaabka loo create garanayo ama loo abuurayo company-gaaga cusub marka aad dhex joogto systemka in quick books online chapterkeenani wuxuu ka koobnaan doonaa 5 video kuwaas oo aynu ka gaari doono ilaa videoda ugu dambeeya oo ku saabsan working with users qaabka ay u shaqeynayaan userska ama macnaheedu isticmaalayaasha qayb kamid ah isticmaalayaasha waxay noqonayaan qayb kamid ah shaqaalahaaga kuwaas oo aad ugu tala gashay in ay kugula shaqeeyaan barnaamij xisaabeedkan online-ka ah haddii ay doonaan shaqadaada ha dhex joogaan haddii ay doonaan adduunka meelo kala duwan ha joogaan balse mid walba waxaad u assign garaysay gaarka aad u siisay username iyo passwordkiisa aad ugu siisay ayuu systemku ugu soo bandhigayaa intaas unbuu awood u yeelanayaa inuu ku shaqeeyo markaas chapterkeena intaas iyo qaabka loo abuurayo ayaynu ku falanqaynayna haddii Allah wada la idmo sidoo kale waxa iyaguna meesha aan ka maqnayn chapterka gudihiisa intaan dhiganayno waxa la yaqaan chart of accounts oo ah xisaab nashqadeedka basiga macnaheedu uu ku fadhiyo ama salka uu ku fadhiyo company-gaagaasi oo ah halka ay ka soo abuurmayso xisaabaadka ama akoonnada kala duwan itemska kugu jira quick books online qaab xisaabeedkaagan ama barnaamij xisaabeedkaagan aad ugu tala gashay inaad ku maamulato ama sida ugu fiican ugu manage garayso businesskaaga chapterkeena insha Allah intaas aynu ku falanqayn doonaa haddii Allah wada la idmo imankana waxaan leeyahay kusoo dhawaada kooraskeenni quick books online iyo casharkiisii koowaad insha Allah